hooya hibada gaadh xanadkii lagu diirsado hooya hibada gaadh war hooyadaabaa labaysee ladnaan kuwar war hooyadaabaa labaysee ladnaan kuwar ducaan kuu soo diraayaaya daca la dhigo allow lagu haybiyaa hurinta aad fadhido allow lagu haybiyaa hurinta aad fadhido halkan aan ku suganahay waa xaafadda daami ee magaalada Hargeysa xaafaddani markii ugu horeysay waxay yeelatay cid ku matasha golaha wakiilada Soomaaliland goordhaweyd toole waxa la shaaciyay natiijada golaha wakiilada ee Soomaaliland ka mid noqon doona Barkhad Jaamac Xirsi Batuun ayaa ka mid noqday xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo matali doona dadka halkan degan oo aan hore u haysan cid ku matasha halkan oo goor dambe oo caawa nimid waxa ka socda dabaaldegyo xaafadan ay ku soo dhaweynayaan xildhibaanada Barkhad Batuun dadka ayaan dareenkooda weydiin doona soo dhawow waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay annagoo caawa guuli noo soo hoyatay annaga iyo ummadda Soomaaliland oo dhan oonanu guusha kaliga ay siinaynin aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Muuse Biix 20 kun oo cod iyo wax ka badan uu ku soo baxo golaha wakiilada uuna noqdo ninkii ugu codka badnaa taariikhda inta Soomaaliland jirtay golaha wakiilada la tago waa guulaadu weyn guushaana reer Daamo kaliya male Soomaaliland oo dhan baale oo gobolka Maroodijeex oo dhan baale qof kasto codkiisa maanta Barkhad ugu yidhiyay inuu munaafacaadsadaan rajaynayna waxaan halkan ka sheegayaa caawa shucuurteeda iyo dareenkayaga oo aanu ku leenahay Barkhad Jaamac Batuun xildhibaankayaga noo soo baxay taasoo uu noo gudbinayo codkayaga mid dheer iyo mid gaabanba ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan idin salaamayaa MMTV mar hadduu noo soo baxay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waa markii ugu horeysay ku dhawaad jamhuuriyadda Soomaaliland inta jirto oo uu noo soo baxay xildhibaankii ugu horeeyay muddo ku dhow 30 sano tan uga mahadnaqayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidii milgaha iyo sharafta lahayd ay meel uga soo wada jeesteen Barkhad maanta jamhuuriyadda Soomaaliland dadka joogo dhan baa u hiiliyay maanta qabyaaladii waa laga koray dimuqraadiyaddii Soomaaliland cagta saartay guul